السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كني وبنجي بيرنجز waxaa la asaasay sanadii 1762 waa bangi lagu tilmaamo cimri dherer awood iyo amaano xataa boqoradii Ingiriiska ayaa akoon ku lahayd halkan in ka badan 200 oo sano oo la soo maray dagaaladii ugu xumaa dunida iyo burburka wadamo badan bangiga Barings ayaa ka adkaaday oo ka soo gudbay dhammaan carqaladahaasi balse sanadii 1995 sumcaddii iyo cududii weyneed ee bangiga Barings waxaa burburiyay wiil yar oo 28 jir ah oo lagu magacaabo Nick Leeson waxay ahayd mid aan la rumaysan karin sida wiilkan dhalinyarada ah uu dhulka ula galay bangigan oo xitaa dagaalkii koobaad iyo labaad aynan wax dhibaato u geysan aan kula wadaago sida ay ugu suura gashay Nick Leeson in uu keligii burburiyo bangigii ugu cimriga ka dheeraa dunida casriga dabcan waa sheeko aad u xiiso badan oo aad ka bogan doontaan hayga degdegina magacaygu waa Maxamed Xuseen ku soo dhawaada xalqadeena maanta Nick Leeson waxa uu ku dhashay magaalada Watford ee dalkaasi Ingiriiska wuxuu ahaa arday kalsooni badan balse aan dadaal badan gelin waxbarashada inkastoo natiijadiisa waxbarasho ay ahayd mid iska dhexdhexaad ah haddana wuxuu nasiib u yeeshay in uu shaqo ka helo mid ka mid ah bangiyada ugu weyn caalamka ee Morgan Stanley halka oo uu ka ahaa mid ka mid ah shaqaalaha hawlgallada ee bangigan isagoo sidoo kale caawin jiray kooxda ku shaqada leh ka ganacsiga lacagaha taa oo u ogolaatay in uu wax badan ka barto suuqyada maaliyadeed kadib 2 sano uu halkan ka shaqeynayay Nick ayaa weydiistay madaxa shirkadda in la dilacsiiyo oo laga dhigo mid ka mid ah ragga waaweyn ee ka ganacsada suuqyada maaliyadeed nasiib darro codsigii lagama aqbalin oo waa loo soo diiday taa oo aad uga careysiisay Nick isagoo shaqadii isaga tagay muddo yar kadib waxa uu la kulmay fursad kale oo cajiib ah wuxuu arkay in ay shaqo ka banaan tahay Barings Bank isagoo durbadiiba gudbiyay warqadihii codsiga shaqo inkastoo Barings uu ahaa bangiga ugu caansanaa ugu cimriga dheeraa gudaha Ingiriiska haddana Nick wuxuu leeyahay aqoon uma lahayn mana maqlin weligay Barings ka hor inta aan halkaasi shaqo u doonan At that stage I probably would be happy to say that I'd never heard of Barings but it was a famous old bank so there's no Barings in Watford Barings ma ahayn bangi caadi ah wuxuu ahaa mid ay si weyn u ixtiraamaan bangiyada kale ahna kan ugu amaanada fiican oo dadka ugu qanisan Ingiriiska ay lacagahooda dhigtaan sida boqorada Ingiriiska oo kale dhibaatada kaliya ee bangigan haysatay ayaa ahayd in uu la jaan qaado bangiyada casriga ah ee adduunka wuxuu ahaa bangi qadiim ah kadib markii Nick Leeson la aqbalay codsigiisa shaqo kuma aynan qaadan waqti aad u dheer in uu ogaado ciladaha iyo ceebaha ku saabsan sida bangigu uu shaqeeyo wuxuu bilaabay in uu la jaan qaado shaqaalaha asaagiisa ah ee halkan kala shaqeeya isagoo siin jiray daryeel saaxiibtinimo balse daryeelkani ma ahayn mid dhab ka ah ee wuxuu ahaa mid uu ku soo jeedanayo dadkan si uu hadafkiisa u gaaro wuxuu ahaa xariif shaqadiisa yaqaan oo ku xil dheer xalinta mushkiladaha soo wajaha bangiga taa oo sababtay in si fudud uu u kasbado kalsoonida madaxdii bangiga muddo yar kadib Nick ayaa waxaa loo diray dalkaasi Indonesia si uu markaa u soo dhiciyo deymo bangiga uu dad ku lahaa taa oo muddo dheer ku qaadatay in ay iska dhiibaan Nick ayaana ku guuleystay in uu gacanta ku soo dhigo ku dhawaad 100 milyan oo pound wax waliba way isugu toosnaayeen Nick isagoo sii siyaasaday kalsoonida madaxdiisa intii uu ku sugnaa gudaha Indonesia wuxuu halkaasi kula kulmay gabadh lagu magacaabo Lisa Sims oo ka mid ahayd shaqaalaha bangiga ee halkaasi ka shaqeeya waxayna isguursadeen sanadii 1992 isla sanadaasi dadaaladiisii adkaa ayaa u miro dhalay kadib markii madaxda bangiga ay u soo bandhigeen in uu madax ka noqdo xarun cusub oo ay ka fureen wadanka Singapore misna ka mid noqdo mid ka mid ah ragga waaweyn ee bangiga u qaabilsan ka ganacsiga suuqyada maaliyadeed ee Aasiya tani waxay ahayd fursadii ugu qaalisaneed ee Nick uu sugayay dhanka kalena waxay ahayd go'aankii ugu xumaa ee ay madaxdii Barings qaataan misna ay ka shalayn doonaan inta noloshooda ka dhiman Nick Leeson ayaa durbadiiba u duulay dhanka iyo Singapore isagoo markaa guda galay shaqadiisii oo ahayd in uu ka ganacsado suuqa Nikkei isagoo sharad ku galaya haddii qiimaha uu kor u kac sameyn doono ama uu hoos u dhac sameyn doono haddii suuqa uu aado sida uu saadaaliyay wuxuu ka faa'iidayay lacag badan balse haddii uu aado dhanka kale si la mid ah lacag badan ayuu qasaarayay sanadii ugu horeysay ee howlgalkiisa Nick ayaa soo hooyay faa'iidooyin aad u badan u dhawaad 10% faa'iidada bangiga ee sanadaas asaga ayaa soo xareeyay madaxdii bangiga Barings ayaa aaminay in uu yahay xidig u soo baxay bangiga oo aan marnaba qaldamin saadaashiisa balse mid aan maynan raagin oo dabayaaqadii sanadaasi suuqii ayaa bilaabay in uu isu bedelo si joogto ah taa oo keentay in Nick uu qaladaad badan sameeyo misna lacag uu ku qasaaro lacagii qasaarada ah ayaa sii ziyaaday taa oo haddii uu
kasoo kabsan waayo sababi doonta hoos u dhac weyn oo ku yimaada dhaqaalaha bangiga. Nick ayaa aad uga cabsanayay in uu waayo shaqadiisa ama kalsoonida madaxdiisa mar hadday ogaadaan khasaaraha uu lugaha kula jiro. Si midda aynan u dhicin oo uu uga qariyo madaxdiisa khasaaraha uu wajahayo, wuxuu furtay akoon qarsoodi ah oo uu ku qarin doono khasaaro walba oo uu galo. Wuxuu sidoo kale bangiga ka codsan jiray lacago dheeri ah isagoo u sheegaya in hawlo kale uu ku qaban rabo, sida in macaamiil cusub uu deymin rabo oo kale. Balse xaqiiqda waxay ahayd wuxuu rabay in mar kale uu suuqa la galo isagoo filanaya inuu ka soo kabsan doono khasaarihii uu galay oo hadhow marka faa'iido badan uu sameeyo lacagihii bangiga uu celin doono. Madaxdii bangiga ayaana si joogta lacag ugu soo diri jiray iyagoo xitaa aan hal mar ku fekerin in ay baaraan halka uu Nick ku bixinayo lacagahan tirada badan. Nasiib xumo, qorshihii Nick ee ahaa inuu ka soo kabsan doono khasaaraha mayna shaqeen oo khasaare ka sii badan midii hore ayuu galay. Ku dhawaad 20 milyan oo pound ayuu ku khasaaray. Waqti aad u xun ayuu wajahayay oo xitaa ma karin in uu seexdo habeenkii. Ma lahayn waddo kale ee u bannaan ilaa in uu galo shart ka sii weyn midkii hore, isagoo boqolaal sheer iibsaday ilaa heer haddii hal mar uu suuqa u dhaqaaqo sida uu saadaaliyey uu awoodi doono in dhammaan lacagihii uu khasaaray uu iska soo gudo. Kadib 9 bilood oo mugdi ah, nasiib wanaag qorshihii wuu shaqeeyey oo suuqii sida uu saadaaliyey ayuu u dhaqaaqay isagoo dhammaan deymihii iska guday iyadoo cidna aynan ogaan oo madaxdiisii ay u haysteen in muddadan oo dhan uu faa'iido ku jiray. Nasiib xumo, tani ma ahayn mid uu cashir wanaagsan ka bartay Nick ee waxa kaliya uu ka dhaxlay waxay ahayd in uu ka bartay sida wax loo qiyaamo misna loo qariyo khiyaanadaas. Halka uu ka waantoobi lahaa oo uga carari lahaa in mar dambe una lugaha la gelin dhiiqadii hore, Nick ayaa iska dhaadhiciyey in wadadan uu si dhaqsi leh ugu taajiri karo misna uu ka soo kabsan karo khasaare kasta oo uu galo. Wuxuu isku haystay in uu caaqil aan loo gelin oo khasaaradii weyneed karti kaga soo baxay, balse xaqiiqdu waxay ahayd taa cagsigeed oo nasiib dartii ayuu kaga soo baxay khasaaradaasi. Almuhim, Nick ayaa dib ugu laabtay wadadii hore isagoo markan sii laba jibaaray lacagihii uu suuqa la galayay isagoo bangiga ka qaadayay 100,000 maalinkii. September 1994, ku dhawaad 160 milyan oo pound oo khasaare ah ayuu Nick ku qarinayay akoonkii qarsoodiga ahaa. Markan dhiiqo laga tagayay Bosneer ayuu lugaha la galay. Dadku waxay u haysteen in uu yahay xidiga suuqa ee faa'iidooyin badan sameynaya, balse sida saxda ah waxay ahayd wuxuu khasaarayay milyamaad maalin kasta. December 1994, shir weyn oo bangiga uu ku qabtay magaalada New York ayuu ka qayb galay Nick iyagoo halka ku soo bandhigay in Nick uu sanadan bangiga u soo hoyay 28 milyan oo pound. Midana waxay ahayd been cad oo rag badan ayaa shaki ka qabay arrinkan iyagoo baaritaano ku sameeyay lacagaha bangiga iyo halka ay ka soo galeen. Waxayna ogaadeen in Nick uunan xitaa hal pound u soo xarin bangiga, balse madaxdii arrinkan dhegjaal kumaynan siin oo way iska indha tireen. Noloshii Nick mar kale ay mugdi gashay isagoo markan xadkii dhaafay misna wax fursada u muuqda inaan jirin. Ugu dambeyn sanadii 1995, Nick wuxuu go'aansaday in markan uu lacagihii ugu dambeeyay ku sharad galo suuqa Japan ee Nikkei isagoo saadaaliyay in wax isbedel ah uunan ku iman doonin dhaqaalaha Japan iyo suuqyadeeda. Midan waxay ahayd fursad haddii uu ku guuleysto ka gudi doonta dhammaan lacagaha uu ku khasaaray ee uu qarinayay. Isbuucyadii hore wax waliba waxay u socdeen sida uu rabay oo wuxuu xaqiijinayay guulal isdaba jooga. January 17, 1995 waxay ahayd maalinkii ay wax waliba isrogeen kadib markii uu dhulgariir weyn ku dhuftay dalka Japan ka oo galaaftay nolosha ku dhawaad 45,000 oo qofood misna ay ku dhinteen 6,000 oo qofood. Suuqii Japan ee Nick uu saadaaliyay in uu wax isbedel ku imaanayn dhulka ayuu galay oo khasaaradii ugu weyneed abid ayuu wajahay. Madaxdii bangiga ayaa u haystay in Nick uu ka faa'iideysanayo suuqan qiimihiisa raqiiska noqday, balse waxay moogayeen in asagaba uu ku jiro dadka ku khasaaray. Intaan kadib, Nick wuxuu garan waayay wax uu sameeyo. Cadaadis weyn ayuu dareemay, gacmihii ayuuna kor u taagtay. Maalmo yar kadib, mid ka mid ah boghayaasha bangiga ee Singapore ku sugnaa ayaa arkay in wax badan ay ka qaldan yihiin akoonka Nick Leeson. Kadib baaritaano badan oo uu sameeyey, wuxuu arkay 50 milyan oo uu Nick ku khasaaray suuqa, balse uu ilaabay inuu qariyo dokumentiskii. Tani waxay ahayd gabagabadii oo Nick wuxuu ka war helay in boghayihii uu ogaaday akoonkii qarsanaa iyo lacagihii uu khasaaray. Durbadiiba wuxuu shaqaalihii u sheegay in xaaskiisa ay xanuunsan tahay misna u nus saac kadib uu soo laaban doono, balse waxay ahayd been kale oo isla markiiba wuxuu u cararay dhanka iyo gurigiisa isagoo xaaskiisa soo kaxaystay, wuxuuna isla markii u duulay dhanka iyo Malaysia halka uu ku dhumaalaysanayay. Isbuucyadii xigay madaxdii bangiga ayaa si daba joog ah baaritaano ugu sameeyay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii Nick iyagoo marba marka ka sii dambaysa u soo baxaysay lacag dheeri ah milyamaad iyo milyamaad. Waxay ahayd masiibadii ugu weyneed ee abid ay wajahaan, waxaana la shaaciyay dhammaan lacagihii ay Nick gacanta u geliyeen oo ahayd ku dhawaad 75% dhaqaalaha bangigan. Waa lacag ku dhow 830 milyan oo pound oo haddii dollar ahaan laga dhiga ay imaanayso in ka badan 1 bilyan oo dollar. Kadib 2 qarni uu bangigan shaqaynayay, Barings ayaa burburay oo
albaabada la isugu dhuftay wuxuuna Nick Leeson carraaba ugu dambeyn 2 Maaj 1995 ayaa gacanta lagu soo dhigay isagoo ku sugan garoonka diyaaradaha ee Singapore waxaana lagu xukumay 6 sano iyo bar oo xabsi ah ugu dambeyn waxa la soo fasaxay sanadii 1999 kadib markii uu wajahay caabuqa kansarka Nick ayaana qisadan ka qoray buug ka uu ku dhawaad 200,000 oo pound uu ka faa'iiday sidoo kale qisadan waxa laga jilay film ka oo isna uu ka faa'iiday 7 milyan oo dollar faa'iido balas faa'iido hadeertan noloshiisii ugu wacneed ayuu ku nool yahay bal adigu yaad isleedahay sababka ugu weyn ee bangigan uu ku burburay wuu lahaa madaxdii bangiga oo iyagu dayacay bangiga ama Nick Leeson oo isaguna ka faa'iideystay dayacaasi waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan waa inoo muuqaalka kan xiga fadlan ha ilaawin inaad like garayso lana sii wadaagto asxaabkaaga xigo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته